qubanaheena maalinlaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa shirkii ku soo gabagaboobay magaalada Addis Ababa ee ka maartay ay shirayeen nimanka loo yaqaan Midowga Afrika ee dhowr iyo kontonka dawladooda shirka ama maaragta nimankaas Midowga Afrika oo loo yaqaan shirkooda shimbiriyaha haysa oo intaas oo sano tobannaankaas sano ay shirayeen oo ama maaragta dad la kuro ilaa 57 oo la soo aasaasay ilaa iyo maanta oo ah dhowr iyo 60 sanadood aan waxba ka soo bixin ama waxa qodobada isku raacaan aysan meel marin ama wax maaragta natiijo leh aysan noqon haddaba maxaa sabab u ah shirarkooda inuu wax uun ka soo bixi waayaan ama maaragta dad la ku ruun yahay uu noqdo mid maaragta hal bacad lagu lisaa si aan ognahaba dalalka Afrika waxa soo maray gumeyste maaragta reer Yurub kadibna xoogag ama maaragta dad la ku awoodo dunida oo saameyskooda leh ay maaragta adduunka ay maaragta ay yimaadeen oo cusub kuwaasoo maaragta dad la ku saameyn kala gedisan ku leh saameyn dhaqaale saameyn siyaasadeed iyo saameyn amniba oo gudahaba ay ku leh xataa kuwa qaarkood ee lagu leeyahay saameyn diimeed aan ka bilowno meesha xarunta u ah ee Addis Ababa saameyskaas oo hadda isgadiyay awal haddii maaragta ninka la yiraahdo Mareykan oo ahaa saameynta siyaasadeed iyo midda dhaqaalaba maanta waa halka waa ka wareegeen oo dagaalkii Tigreega nimanka la yiraahdo uu gacan saar kala lahaa uu gadaal ka soo riixayay maaragta xoog iyo xeeladba isugu geeyay xataa gaartay si maaragta warfaafintooda kuwa ugu xooga badan sida CNN iyo Fox News iyo ABC ba ay maaragta ay been ka sheegaan ay yiraahdaan nimankii waxay soo marayaan Addis Ababa duuleedkeeda taasoo beenowday kadibna maaragta la og yahay in gobolkooda hadeertan ay joogaan halka siyaasadii waa isgadisay meesha Ethiopia dhanka kale hadda u wareegtay oo ah inay u wareegto xoogag dhexe kuwa loo yaqaan oo ah kuwa Turkiga hadda la ku roon yahay nimanka loo yaqaano Shiinaha maaragta kuwa awoodaha dhexe ah oo adduunka inay hadda u wareegto oo Mareykankii laga wareegay sababtoo ah Mareykan 27 sano ama 30 sano ku dhawaad ayuu maaragta Ethiopia wuxuu isugu geynayay waxa uu xoolaha haystay asagoo xilli ka horeysaba xataa maaragta ilaa dagaalkii 77 aan galayna xataa Ethiopianka aan ku qaadnay maaragta dabada ka riixayay oo xataa maaragta madaxweynihii Mareykanka Reagan ninka la yiraahdo uu xataa yiri kumaana talagelin in maaragta 10 sanadood magaalada Goday in banaanka wax looga keeno hub ama saanad ama banaanka wax uun looga keeno kumaana talagelin ayadaasoo lagu qabsada maalmo gudahood dawladda Soomaaliya iyo ciidanka Soomaaliyeed ku qabsadeen ilaa xilligaas uu Ethiopia uu taageerayay maanta siyaasaddaas waa wareeg haddaba mawduuceena oo ah maxaa miradhal ka dhigi waayay oo ah maaragta in shirarka ay qabsadaan taas ayaa koow ka ah in maaragta wadan walbaba gumeystihii uu gumeysanayay ilaa hadeersan siyaasad ahaan uu gumeysto dhaqaale ahaanna uu gumeysto ayagoona uu ku tiirsan yahay dal walbana uu ka maarmin madax banaanayn dalalka Afrika ayagoo khayraad xooggan leh uga maarmi karaan meesha ayaga loo soo doonan lahaa khayraadka cayriinka ah ee la ceegaagana haystaan ayaga ayaa baryootama shilimaad maadaama ay wada musuqmaasuq miran ay yihiin maaragta dalalka Afrika waa sida Soomaaliya sidoo kale waxaan ognahay inay ku tartanay maaragta aniga Djibouti dalkaas walaalaha aan nahay inkastoo nin cadow uu haysto maaragta kaliya taliye Ismaaciil Cumar Geyle kursiga golaha ammaanka ee Midowga Afrika kadibna maaragta anagu aan soo gurgurano maadaama 30 sano masaaxadaan ka maqnayn oo 13 kursi aan la iimaan ayaguna ay 19 kursi iyo dheeraadba ay la yimaadeen waxaa laakiin cajiiba kuraasas markaan ku tartamaynay in Abi Ahmed uu naga codeeyay oo Soomaaliya farmaajeeda maaragta brother abiga u yaqaanay oo ka codeeyay Djibouti codeeyay taasna waa loo cudur daari karaa waa marankii dhamaayo raashinka iyo shidaalka iyo saanadaba uga imaado Ethiopia waa ku qasban yahay halka asaatee meelaha kale oo maaragta tilaabooyinka ama saaciidada kale dawladda Soomaaliya oo siiyo waxa weeyaan mid uu ku saacidinayo farmaajo kaliya ee dawladda Soomaaliyeed ma saacido taariikh xun oo aan wanaagsanayn oo hadda la koriyo gumeysi dhulkeena qayb ka midana waa noo dhaxaysa uu ku hayo sidaas la mid ah wadamada kale oo ama Afrikada galbeed Afrikada koonfureed bartamaha inkastoo iska tacbaan tahay tambarina waa iska tan hadda aan ka sheekaynay sidaas la mid ah maaragta Afrikada waqooyi intaba waa niman waa wadamo
xayndaabkii gumeysiga weli ku jira oo dhinacana aan maaragta asagii un ka tagay meesha oo ay baarlamaankii ayaga maaragta hadeertan u gooniya oo iyaga isdoorta waa sax laakiin ma laha madax bannaani siyaasadeed iyo madax bannaani dhaqaale madax bannaani waxba xataa kuwa qaarkood diinta maaragta aysan weli u madax bannaanayn maaragta gaar ahaan kuwa kirishtaanka oo kale akhyaaray kulanka maaragta dabcan waa sanad walba waa dhacaa inkastoo labadii sano hadda lasoo dhaafay coronavirus aawadeed uu dhici waayey haddana waxba kama soo bixin shirka hase ahaatee maaragta ninka la yidhahdo farmaajo khudbad dheer ayuu halkaa ka aqriyey aad u malayso khudbatul wadaac lagu tilmaami karo khudbadii sogootinta oo midowga afrika inuu ku sogootinaya u malayso taasoo aan maaragta dhihi karno oo maaragta wuxuu kusoo qaatay sidii maaragta inuu ololo cusub ku jiro kale wuxuu ka sheekeeyey inuu shabaab maaragta uu qaybna ay jabiyeen qaybna u harsan tahay waxyaala saas inuu dhaqaale ka soo uga hadlay inuu dhaqaalihii hagaajiyo waxyaalo badan oo maaragta u malaysay maaragta inuu asaga wax asaga u gooniyo ololaha uu halka ka sheegay kilibkeena intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa maadaama shirkuba iska yahay maaragta shir iska tacbaana akhyaaray sii sheer gareeya